daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan oo ah martiqaad uu fidiyey maxamed cali caseer. martiqaadkaas oo ka qabsoomay goobta la yiraahdo caduur jiidaliyad oo qiyaastii kaga beegan magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ilaa 720 kilomitir jihada waqooyi bari, dhinaca kalena magaalada Jiidali ka xigta galbeed ilaa 8 kilomitir. waxaana martiqaadkaas ka soo qayb galay waayeel iyo waxgarad uu hogaaminayo wakiilka garaadka guud Cabdi Garaad Maxamed Garaad Maxamuud iyo waxgarad iyo cuqaal tiro badan oo ka kooban deegaanada Sool iyo Sanaag. daawasho wanaagsan. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaynu ku sugannahay deegaanka Caduur Jiidaliyeed oo beerti Maxamed Cali Caseer. waxaanu imika kelmad warbixin guud ah inuu halkan inaga yiraahdo inuu siin doonaa Maxamed Cali Caseer oo maanta marti loo yahay oo dadweynaha deegaanka iyo guurtidii u timid hawshii nabadeyntii dhacdadii foosho xumeed ee ka dhacday magaalada Biyo-Guduud. dadweynaha tirada inta leeg waxa maanta marti qaaday Maxamed Cali Caseer. haddana isaguna bal kelmad siin doonaa Maxamed Cali Caseer ku soo dhaw. bismillaahir rahmaanir rahiim. halkan waxa isugu yimi rag fara badan oo ilaa Laascaanood ilaa Sool iyo Sanaag inta isaga yimi ergadii ugaaryahan nabadeyntii dagaalkii ka dhacay Biyo-Guduud u timid dalka. maanta waxay ku sugan yihiin Caduur Jiidaliyeed. waxay tacsi tiiraanyele uga dirayeen maxruumkii Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle qoyskii iyo qaraabadii ka dhintay bay tacsiinayeen. deegaanka Caduureed deegaan aad ballaaran weeye oo beeraley ah oo xooluhu joogaan kuna dhaqmi karaan noocyo kasta geel iyo lo iyo ari. waftidaas oo maanta ku sugan halka aanu ku soo dhaweynay deegaanka iyaga Caduureed inta ayaan ka warbixinayaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. aniga oo ah Ibraahim Maxamed Xasan kana tirsan waayeelka dooxada deegaanka Caduureed ee Heel Caduur. guud ahaan waayeelkaas guurtidaas garaadku hogaaminayo oo ka yimi ilaa Laascaanood iyo inta la midka ee ugaaryahan oo u yimi arrintii tacsidii ka dhacday Biyo-Guduud nabadeynteeda iyo wax ka qabadkeeda hawli weli ku dhex jira. iyagana waxaan ugu ducaynaa Ilaahay ha u fududeeyo sahal yasiira Ilaahay ka dhigo. inta waxa raacda maanta waxa casumay Maxamed Cali Caseer Maxamed Axmed Khayr. annagu marka Caduur meesha la yiraahdo maaha qabiil maaha, waa deegaan Caduur ee Heel Caduur la yiraahdo. taas baanu la soo xoojinay arrinta odayaa waayeelkaanu soo dhaweynay. muxuu ahaa halka waayeelkiina dooxaday fadhiyaan barwaaqadaas. Ilaahay barwaaqana waa ku shubay. Ilaahay hanoo siyaado alxamdulillaah rabbil caalamiin. waayeelkaasaanu soo dhaweynay. waxaanu soo dhaweynay marka oo la soo dhaweynay haddaanu nahay Caduur Heel Caduur haddaanu nahay dhammaantayo annagu aan qabiil kale lahayn. qabiil leeyahay Heel Caduur baanu annagu nahay. cid kastana waa leedahay. cid ka degta deegaanka Ceerigaabo ka maqanina ma jirto. waxaanu la soo dhaweynaynaa nimankaas odayaasha oo dhowrka oo waftiga marti qaaday baanu la soo dhaweynaynaa. hawshoodana Ilaahay ha u fududeeyo. haddana anagoo joogna deegaanka Caduur Jiidaliyeed magacaygu yahay Maxamed Axmed. waxaa halka marti noogu ah waayeelkii nabadeynta u yimi Jiidali shaqaaqadii ka dhacday Biyo-Guduud. Caduur baanuna joognaa maanta oo halkan aan ugu tacsiyadeynay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle. waayeelka warkii dhameeyay martidaas noo joogta meeshaanu ku sugannahayna waa Caduur. waxaanu halka ku soo dhaweynaa waayeelkii u yimi nabadeynta Biyo-Guduud. aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaa. waftigu aad buu u mahadsan yahay. waddanka ina sii martaan baaxadda uu leeyahay aad iyo aad baa dadweyne ugu farxay. aad iyo aad buu ugu farxay. waftigiinana waxaan leeyahay Ilaahay hawlaha idin fududeeyo. Ilaahay ha idin nabadgelyo celiyo. Ilaahay khayr ha idin siiyo. anigoo magacaygu yahay Yaasiin Nuur Aadan waftida nabadeynta halkan noogu yimina waa soo dhaweynaynaa. aad baanu soo dhaweynaynaa.
waxaanu leenahay ku soo dhowaada caduur waa idin soo dhoweynaa gacmo furan baan idinku soo dhoweynaa wasalaam dhowr su'aalood aan yar weydiiyo maxamed cali casayr su-aashan ku weydiinaya waxa weeye kulley halkan waxaa ka muuqda tacab bal kulley sida iga muuqata marka balka kan ma roobkii u horreeyaba ku baxay mise roobabka dambe waa intee saacadood baa beerta qoday kulley si dadka daawanaya aynu xog uga siino balkan halka ka qodan goobta aynu joogno waa 3 saacadood biyihii guga bishii shanaad baa la qoday waa haruur waxa qoday cagaf goobaha kalena waa badan yihiin laakiinse goobtan waa 3 waana haruur xoolaha loo beeray raashinna waa ka baxaya garowga bahalka iyada ka baxa waa raashinka waayahay su'aasha labaad aan ku weydiinaya waxa weeye kulley maadaama dadka deegaanka degan ay yihiin dad beeraley ah cagafta ku qoday misla dadka beeraleyda ah mise meel kale ka soo kireysateen cagafta waa soo kireysan deegaanka un bakati waayahay مثلا si aynu xog dhameystiran u siino dadka aynu rabno inaan warbixinteena gaarsiino waxyaabaha hadda tiin beeraleyda reer caduur jiidaliyeed caqabadaha idin hor taagan ama waxyaabaha aad u baahan tihiin in wax la kala qabto maxaa kamid ah waxaanu u baahanahay riig meeshu waxa weeye male biyo wiyeera waxay wax noogu baxaan xilli roobaadka baahidayada ugu weyni annagoo dal aad iyo aad u wanaagsan joogna oo ciidiisuna fiican tahay haddii biyo loo heli lahaa dhoobay oo kale noqon lahaa marka baahidayada ugu weyn aanu jecel lahay wax kale maaha waa riigag way iyo cagaf way dhinaca biyaha haddaan su'aal ka weydiiyo kulley riiga markaan ka imaado inta badan beeraha riigna waa lagu waraabiyaa ceel gacan qoday waa laga sameeyaa ma jiraan ceelal gacanta lagu qoday oo dhulkan biyo laga gaadhay dooxada dhuuxa maya dhuuxu lagama gaari karo riig baa biyihiisa gaari kara marka dhuuxu ma keeni karo biyo gacanta lagu soo saaro okay marka beerashadiinu waxay ku xidhan tahay raxmadda cirka xilli roobaadka labada fays oo cirku doo ayaanu beeraa galeyda sarreenka digirta haruurka okay ma sha Allah waayahay duruuftaas waa duruufta ugu muhiimsan waa dhinaca biyaha waxa ugu sii muhiimsan waa riiga waayahay guud ahaan marka sawir guud ka bixisid caduur jiidaliyeed magaca aynu isticmaalayno guud ahaan intee beerood baa ku yaala marka qiyaasid ku yaala caduur jiidaliyeed 140 beerood 140 ka beerood sida hadeer tan tacabka uga muuqdo ma u wada beerayeen mise way kala duwan yihiin waa wada beerayeen dhamaantood wada beerayeen reer guraama dego dad deegaana dega oo beerahooda beerta oo isku jir ah way maadaama sida aad sheegtay 140 beerood inay deegaanada tan ka kooban yihiin bulshada u fara badan ay ku nooshahay dad deegaana oo degan oo aan guurin ay yihiin ma jiraan مثلا iskuulo ka dhisan oo wax lagu barto goobo waxbarasho ilaan ubadkii waa in macnaha waqtiga looga faa'iideeyaa oo la gacan qabtay iskuulku nooma dhisna iskuul ma leh malcaamad iyo masaajid bay leedahay goobo waxbarasho iskuul ma leh waayahay dhisme iskuul kama jiro dhisme iskuul waan gartay inaanu ka jirin kulley deegaanada qaar waxa jira kulley iskuulka dhismihiisu qaar baa macnaha deegaanada waxa ka jira inay ama dhismo gaara ama dhismo cid waqaftay ay iskuul ku sii dhigtaan ma jiraan goob kamid ah aagaga kan oo wax lagu bartay khaasatan dhinaca iskuulka malcaamada waad sheegtay dhismaha yaanuba jirin may hadeer ma jiro way warbixintiina iyo cabashadiina ma u gudbisan qolada wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha ku shaqada leh arrimaha waxbarashada xilliyo badan baan u gudbinay xilliyo badan baanu u gudbinay oo codsiyo badan iyo araaji badan iyo qoraallo badan ilaa og maayirka kuwa ay ku taalaan u dhiibnay oo maayirku noo shaambadiyay jiifka gudbiyashay iyo jiifafka deegaanka ilaa iyo haddana jawaab lagama soo celinin waxqabadka aad codsateen oo muhiim idiin ah waaye dhinaca diinta oo ah arrinta ugu muhiimsan waxaad ii sheegtay malcaamad inay ka jirto malcaamadu markaa ma hal meel baa wax lagu dhigtaa mise dhowr meelood kala duwan weeye malcaamadu waa badan yihiin 3 goobood baa malcaamada lagu dhigtaa sax waahay
waaye markaa kolleyda macallimiin baa idin dhigtaa macallimiinta markaa dhaqaalaha aad siisaan dadweynihiina ubadka wax loo dhigayo ayaa arrintaa contribution ahaan wax isugu dardara oo siiya miya haa waalidiinta bixisa caruuraha dhashay waa bixisa macallinka lacagtiisa waaye madaarista aad sheegtay ma dhismo loo dhisayba wax loogu dhigaa ma geed hoostaba wax loogu dhigaa ma dadka deegaanka qof kamid ah waa isxilqaamay oo gurigiisa loogu dhigaa macnaha hoyga wax lagu baro carruurta dhinaca diinta waxaa loogu dhigaa geed hoosti goob dhisan oo bina ah oo malcaamada ma jirto waa geed hoosti iyadana waxaad codsanaysaan maadaama diintu ay tahay shayga koowaad u baahan in la hormariyo in madarasadaas laydinkala qayb qaato dhinaca dhisma waaye aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed cali casayr aad baad mahadsan waxaan isagana waraysi kooban ka qaadi doonaa axmed maxamed jaamac axmed walalac oo ka mid ah halyeeyada deegaanada tan dhab ahaantii aadka u dareensan wadaniyadu qiimaha ay leedahay axmed walalac ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إلهي بمهدله الله سبحانه وتعالى ساك هالكن سوق كاني إله برواقة إن لكل مية برواقة هذا كيسان جرين كاي قروح ضلع النصيب كاي نسيي الحمد لله ساق مهدله أنا قاضي أضبانو في عنها هاي دات كان غير عدورات كا سحيل قامي وكمد يا محمد علي عسير محمد أحمد خير ياسين نور آدم iyo dhammaan inta kala soo ajiibtay alxamdulillaah rabbil caalamiin si fiican ayaan saaka u faraxsanahay wax dhibaato ah waxa ugu dhow hawsha biyo guduud ka taagan iyadana waa loo fadhiyaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ka baryayn inuu fududeeyo rajo fiican waanu ka qabnaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala dabka baqtiyo aanay cid dambe ku dhiman hawshaas uguna ku dhamaato waayeelkii noo yimi ergooyinkaana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin oo ilaa halkan nala yimi dhul badanna waanu marin doonaa insha Allah dhammaan inta daawata waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu waxaa isaguna halkan taagan Siciid Axmed Xaaji Nuur oo ka mid ah waayeelka deegaanada tan jiidali hoos yimaada iyo deegaano kaleba xaaji Siciid ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle ilaahay ina abuuray ee barwaaqada ina siiyay ayaan uga mahadnaqaynaa الحمد لله رب العالمين سنة كان ينتوجنه أما بلهنا ينتوجنه شن سنة إسكو سوريجا هل كان عدورتن أن هاد تاجنا هي يشيدري يدجانا دبا لما يروح النبات بيرحاي نكيم هذا وحور الله لا قاعدتك ما أنت الحمد لله وبروقة أركتان وبير كبيرة بيرها المعصير كيالا ضحى عدور جدليد وقيب كميدا هدر سيدا دركيسان halkan waxa weeye ergadii soo booqatay oo martamaanta marti galiyay Maxamed Cali Casayr halkan waxa taagan Xaaji Maxamuud Olol iyo Xaaji Cawil Cabdullaahi iyo Mursal Cabdishiir marka waxa weeye hadar kulay waxaanu bartiga kaga jirnaa inaynu ergada iyo waxgaradka soo booqday deegaanada tan aynu soo tusno beeraha ku yaala deegaanada tan tacabka quruxda badan ee la geliyay raxmadda ilaahay ku shubay oo run ahaantii ilaahay wax loogu mahadiyo ah indhihiina waxaad ku aragtaan dhulkii oo noolaaday oo ay ka soo baxeen dhir aad u kala duwan oo ay xooluhu cunaan halka waxa ka muuqda tacab la beeray oo isugu jira hadhuudh iyo galley marka runtii hadda waxaanu u gudbi doonaa qaybaha kale ee deegaanada tan beeraha la deriska ah beerta tan iyo iyada laftigeeda oo beer weyn ah aynu ka tagu doono meelo kamid ah haddana waxaan kelmad siin doonaa bal hadda inuu kelmadan yiraahdo Maxamuud Olol Jaamac xaaj ku soo dhaw Maxamuud Olol waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cid allaale ciddii daawan doonta waan salaamayaa halka waxa jooga ergadii u timi shaqaaqadii ka dhacday biyo guduud oo hogaaminayo garaad cabdi garaad maxamed oo garaad cabdi garaad maxamuud oo hogaaminayo oo la nabadoono guurti raqdhaqameed saraakiil waxaan ku idhaahdaa dhallinyaro aqoon-yahano cid walba isugu jirtaan arrintii meel fiican bay maraysaa waxaanu soo maanta casumay maxamed cali casayr
oo ku casumay meesha la yidhaahdo caduur jidaleed ergadaa waxaannu daawisiinaynaa oo tusaynaa deegaanka la leeyahay deegaankaasoo ah deegaan ballaadhan waa caduur jideed waxay ku taallaa madaxa sare ee jidaleed buurta surud hoosteeda xagga waxaa ka sii sarreeya midhisho waxaa ka sii sarreeya xamaas waxaa dhinacan waxaa ka xiga caadhimire togani wuxuu biyeeyaa jiidali deegaankaa ballaadhan ee baaxadda leh ayaannu tolka yimi ee ergada ka midka ah daawisiinaynaa iyadoo ilaahayna nimceeyey uu ku soo beegay xilli indhuhu ku doogsanayaan oo ilaahay u roonaaday aannu ilaahay ka baryayno nimcada nuqsaanteeda inuu nagaga ilaaliyo naga nabadgeliyo waa mar labaad baan salaamayaa waxa laale wixii daawan doona wabilaahi tawfiiq haddana waa xaaji cawil baan kusoo dhaweynaya oo kelmad mahadcelinaya dareenkiisa balada inuu ka joogo bismillaahi raxmaani raxiim marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cawil cabdulaahi nuur waxaanu nahay ergadii ka timi gobolka sool inta uu xukumo intii aanu ku jirnay deegaanka cergaabo soo gallay waxaanu ku jirnay hawshii biyo guduudan wadaynta ahayd maantana waxaan u soo baxnay oo aanu ayaamaanba ku jirnay deegaanka aynu degno xafladaha hawlada ku qabanayay iyo martisoor maantana halka waxaan ugu casuumay ninka la yidhaahdo maxamed cali casayr ilaahay waan ugu mahad celinaynaa barwaaqada iyo meesha uuna keenay iyo beerahan iyo tacabka uu geliyey ilaa intaana waxaana waday qoladii reer ceerigaabo aan u kala hadhin deegaanka joogtay haddana waxaanu ku jirnaa ayaamahan waxaanu ku jirnaa dalxiis maantana beertan ayaan ku dalxiisaynaa dhulkan nimankana aad ayay uga shaqeeyeen waa dhulka quruxda iyo beeraha leh annagaba waxay nagu soo dhoweynayeen intayada bal inuu ciddii wax beeran kartaa in ay timaado oo dhulka beeraley xoolaha beeraley ka dhigno inta hoosana in xoolaha ku dhaqanno de waxaan leeyahay dadkeena qurba joogtaa de dhulkan la maal gashado waxay u baahan yihiin oo kaliya hadeer waa matooro qodo ceelasha dhaqaalihii la gelin lahaa intaana in laga tashado loo caawiyo bay ku wacan tahay wabillahi tawfiiq halkana waxaa taagan siciid barre oo ka mid ahaa waayeelkii kulankan iyo martiqaadkan soo qabanqaabiyey xaaji siciid barre waxaad ka warantaa dareenkaaga waxaad ku tala bixinaysid bal ku soo dhow waxa weeyaan dee wardhafoor buu ku yaallaa waa la arkaa nimcada ka muuqata caduur jiidaliyeed macsuumna aanu u nahay maxamed cali casayr iyo waayeellada la jooga waxaan leeyahay qurba joogay aanba faydniye waxba hay farin maasha allah aad iyo aad baad halkan isna waxay la taagan madar cabdi xasan saakana ka soo kicitimay magaalada jiidali bal madar waxaad ka warantaa kulley dee soomaalida waxay tiraa warin dhaadhaama bal dareenkaaga iyo bal ka waran sidee xaaladda u tahay maanta wallahi dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay boqolkiiba boqol shucuur wanaagsan baa iga muuqata maadaama dhulkan barwaaqo iyo nimco ilaahay ku shubay dhulkan tacab badan la geliyey una baahan yahay waxtar dal iyo dibada dadkan la isla garab taago qurba joogay dhulkii aad ka dhoofteen ka tagteen waa dhulka kan dadkaasaan idin haya dadkaasna waxay u baahan yihiin hili hooba garaad cabdi garaad maxamed garaad kolley halkan aanu ku sugannahay waa caduur jiidaliyeed kolley garaadku dee deegaanadana kuma cusba hase yeeshee maanta raxmad baa ka muuqata bal garaad bal dareenkaaga ka waran ku soo dhowow garaad asalaamu calaykum calaykum assalaam dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay boqolkiiba boqol waxaanu joognaa caduur jiidaliyeed ilaahay indhahayaga waxay arkayaan barwaaqo fara badan nabadgelyana waa qabnaa aad iyo aad baanu ugu nimcaysannahay dareenkayguna waa boqolkiiba boqol wax ilaahay loogu mahadnaqay weeye guurti badan baanu ku joognaa waxaanu u joognaa shaqaaqadii ka dhacday ee biyo guduud iyaduna meel fiican bay noo maraysaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaa si khaatmalan inay noogu dhammaataa warkayagu caynkaa weeye waa bilaahi tawfiiq waxaynu dhexda uga jirnaa booqashadii martiqaadkii uu fidiyey maxamed cali casayr iyo waayeelka la deegaanka ee deegaanka caduur jiidaliyeed halkan aynu ku sugannahay waa beerta ilmo suufi oo sida idin muuqata dhinaca koonfureed ka xigta beerta maxamed cali casayriyo dhammaan indhihiinu waxay qabanayaan oo arkayaan in dhammaan dadka deegaankani yihiin dad u taagan tacab iyo wax soo saar iyo inay
raxmadda ilaahay u shubay ay ka faa'iidaystaan sida idin muuqata cirku waa buuxaa daruur baa camirtay waxa idin muuqda waa madaxyo ilaahay idamkii waxaan ka rajaynaynaa ilaahay raxmadiisa waasica ah inuu ummadaha islaamka ah ee abaartu weli hayso in ilaahay raxmadiisa u shubo in ilaahay cid kastoo abaar hayso ilaahay barwaaqo ugu bedelo qoladanna in ilaahay barwaaqada u sii siyaadiyo raxmadda dhulkan ku dhacdayna ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in ilaahay anfaceeda iyo khayrkeeda iyo barwaaqadeeda ilaahay siiyo ilaahayna ka ilaaliyo nimcada nusqaanteeda run ahaantii dhulkani waa dhul aad iyo aad carrasan oo ah waa dhul runtii tacab iyo khayr fara badani ka muuqdo waa dhul runtii u baahan in dadweynaha degan deegaanada tan wixii laga qaban karo lala qabto arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka cawdeen ama ay ka cabanayaan waxa weeye dhulkani sidaad warbixinta ka maqli doontaan dhul ceelal birqoday biyo lagu gaari karo ma aha waa dhul biyaha dhulka ku jira riig kaliya ka soo saari karo beerashada idin muuqataa labada xilli ee xilli roobaadka ee dhulkan ilaahay raxmadiisa ka shubo ayay beertaan run ahaantii marka waxaanu dadweynaha kulley deegaanada tan ka soo jeeda iyo dhammaan ummadda muslimiinta iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba aan la socodsiinaynaa iyo hay'adaha ku shaqada leh arrimaha biyaha iyo riigaga inay deegaanada tan ay riigag uga qodaan si dadku dhulka u beertaan u manfaacadsadaan aad iyo aad baan idin salaamayaa waa Kaysa Cabdi Cali Qodax assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh